السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا سبسكرايب garee hadii aad ku cusub tahay channelkan si aad u hesho xog kasta oo halkan ku soo gudbino. Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali ah kana tirsan aqalka Congress-ka ee Mareykanka ayaa wajahaysa culaysyo uga imanaya madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo saxaafadda Yuhuudda kadib qoraal ay ku qortay barteeda Twitter-ka. Ilhaan Cumar ayaa sheegtay in xildhibaanada Congress-ka ee taageersan Yuhuudda ay dhaqaale ka helaan kooxaha taageera Yuhuudda. Arrintaasi ayaa sababtay in gudoomiyaha Congress-ka Nancy Pelosi ay sheegtay in Ilhaan looga fadhiyo inay raaligelin ka bixiso hadalkaasi. Ilhaan ayaa raaligelin ka bixisay ku aadan qoraalkii ay ku soo qortay barteeda Twitter-ka, laakiin raaligelintaas ayaa u muuqata mid aan markaas ayadu dhaqan gelinin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay Ilhaan inay is casisho kadib markii ay erayo Yuhuud nacayb ku soo qortay barteeda Twitter-ka. Trump ayaa sheegay in Yuhuud nacayb aysan meelna uga banaanayn Mareykanka. Waxa kale oo uu sheegay in raaligelintii ay bixisay Ilhaan ay tahay mid daciif ah. waxa uu inta raaciyay in hadalkaasi ka soo yeeray ay tahay mid ay si weyn ayadu markaas u aaminsan tahay. Waxa laga yaabaa in la yaabto xageeba iskala qaadeen Ilhaan iyo Trump xilligii madaxweynaha wadanka Mareykanka Trump uu ku jiray ololaha doorashada. waxa aad loo xasuustaa hadal uu yiri Soomaalida ku nool Mareykanka oo ahaa in falal argagixiso oo kaliya ay ku soo kordhiyeen magaalada Minnesota oo haddii uu doorashada ku guuleysto uu hakin doono ama joojin doono qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriinta Soomaalida ay markaas ay ku soo galayeen dalka Mareykanka. waxa kale oo la xusuustaa hadal aan baxay oo ay tiri Ilhaan Cumar oo ahaa in dadka Minnesota aysan soo dhaweeyeen qaxootiga oo kaliya balse ay u socdaan magaalada Washington ee looga taliyay dalkaasi oo ay ula jeeday markaas doorashadeeda maadaama ay iyadu qaxooti dalka ku soo gashay. markii la dhaariyay Ilhaan Cumar ayaa waxay farta ku fiiqday arrimo ay ka mid yihiin taageerada Trump uu siiyo dowladda Sacuudiga ee dagaalka ka wada dalka Yemen, waxaana ay ku baaqday in Trump uu joojiyo taageerada uu siiyo xulafada Sacuudiga uu hogaamiyay ee dagaalka ka wada dalka Yemen. tan iyo markii la soo doortay Ilhaan Cumar waxay fursado badan oo soo maray u adeegsatay inay dhaliisho siyaasadda Donald Trump, waxaana tusaale loo soo qaadan karaa markii ay ka hadashay hakadkii ku yimid adeegyada dowladda Mareykanka kadib markii Trump uu xaalad degdeg ku soo rogay dalkaasi. Ilhaan ayaa arrintaasi si weyn uga soo horjeesatay waxayna bilowday olole looga hortagayo qorshaha Trump. sidoo kale Ilhaan ayaa ka soo horjeesatay qaabka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo la dhaqmayo ama oo la macaamilayo dowladda Venezuela. waxayna sheegtay in cunaqabataynta dhaqaale ee Trump ay tahay mid uu ku doonayo inuu uga faa'iideysto isbedel dhanka hoggaanka ah oo ka dhaca dalka Venezuela. waxa ayna ka digtay talaabo military oo ka dhan ah dowladda uu hogaamiyo Nicolas Maduro. Ilhaan Cumar ayaa sidoo kale waxa ay soo jeedisay in cashuur dhan 70% laga qaado maalqabeennada Mareykanka maadaama madaxweynaha dalkaasi Trump la aaminsan yahay in siyaasadiisu ay u adeegayso danaha ganacsatada waaweyn. Ilhaan ayaa waxa kale oo la rumaysan yahay inay aad uga soo horjeedo qaabka ay Israa'iil ula dhaqanto Falastiin, waxaana la xusuustaa mar ay Twitter-keeda ku soo qortay in Ilaahay dadka tusiyo qaabka ay Israa'iil ula dhaqmayso Gaza ama dhibaatooyinka ay ku hayso Gaza. Ilhaan Cumar ayaa noqotay qofkii ugu horeeyay ee qaxootiga ee ka mid noqda golaha Congress-ka Mareykanka. ficilada qaar Ilhaan Cumar ayaa sidoo kale waxa ay ka caraysiyeen xulafada madaxweynaha Trump oo Sacuudigu ka mid yahay. warbaahinta Sacuudiga ayaa weerar dhanka saxaafadda ku qaaday Ilhaan Cumar maadaama ay ka soo horjeesatay siyaasadda Trump. bishii December ee sanadkii tagay telefishinka laga leeyahay dalka Sacuudiga ee loo yaqaan Al Arabiya ayaa waxa uu baahiyay muuqaal ay ku sheegeen in Ilhaan Cumar iyo Rashid Tlaib oo iyaduna ka mid ah aqalka Congress-ka inay qayb ka ahaayeen isbahaysi u dhaxeeya xisbiyada dimuqraadiga iyo kooxaha Islaamiga ah ayna doonayeen inay la wareegaan maamulka aqalka Congress-ka. waxaa kale oo jirta aragti aad u xoog badan oo ah in dalalka Sacuudiga, Mareykanka iyo Israa'iil oo waxyaabo badan iska aragti ayagu ka ah aysan la dhacsanayn qaabka Ilhaan ay uga soo horjeesato siyaasadda Trump. arrintan ayaa fursad u siisay madaxweyne Trump in uu markaasi asagoo cadaadis ku saaro Ilhaan inay is casisho ama ay isaga baxdo guddiga arrimaha dibadda ee Congress-ka maadaama arrintaasi oo dhan ay tahay kuwa markaasi saameyn ku yeelanaya siyaasadda dibadda ee Mareykanka. fadlan subscribe garee channelka si aad ula socoto xog kasta oo aan halkan kugu soo gudbino.